wabarakatuh. Dhammaanba bahweynta ama dadweynaha naga daawanaya YouTube-ka iyo page-kan ku leenahay Facebook-ka. Marka ugu horeysa waxaan idinku salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh. Halkan waxaan idinka soo gudbinaynaa cashirkeennii 24aad oo aynu kaga hadli doono waxyaalo aad u muhiim ah. Cashirkeennan iyo casharada kaleba waxaad si toos ah uga heli doontaa YouTube-ka iyo page-ka aan ku leenahay Facebook-ka ee TV-ga Somali German Union. Haddaba daawasho wacan oo wanaagsan. Cashirkeena waxaaynu kaga hadli doonaa 30 ficil ama 30 verb ee ugu muhiimsan ee la shaqeeya ama loola isticmaalo dative-ka oo la yiraahdo die 30 wichtigsten dative verben. Die 30 wichtigsten dative verben waa 30 ficil ee ugu muhiimsan ee lala isticmaalo ama la shaqeeya dative-ka. Halkan waxaanu kaga hadli doonaa marka ugu horeysa macnahooda, kadibna waxaan eegi doonaa tusaalayaal baynu ku qaadan doonaa bal mid walba sida uu ula shaqeynayo. Kelmadda ugu horeysa waxa weeye aanan waxa weeye waa u ekaansho in qofku uu qof kale u ekaado. Number 2 unfortunate waxa weeye ka jawaabid weeye. Number 3 applaudieren waxa weeye u sacabatumid. Number 4 ausweichen waa iska ilaalin ama to avoid inaad iska ilaalisid ama inuu gaari ku jiro ama wax kale. Marka Jarmalku uu ereyo badan yahay tan oo kaliya tan noqon mayso ee kelmado kale oo iyaguna la macnaa wala helayaa. Marka ausweichen waxa weeye iska ilaalin weeye. Number 5 befehlen waa ku amrid inaad qof wax ku amartid. Befehlen ku amrid. Number 6 beitreten waxa weeye ku beerid. Ingiriisigana waxay noqonaysaa to join inaad ku beertid ama koox ku bedel ku beertid ama ku beeris bay noqonaysaa. Beitreten waa ku beerid. Number 7 begegnen waxa weeye la kulmid. Ay la macno tahay treffen laakiin begegnen waa inaad si kadisa aad qofka ula kulantay. Treffen waxay noqonaysaa inaad qofka aad si caadi ula kulantay oo marka hore la sii sheegay. Laakiin begegnen waxa weeye marka qofka la kulanto laakiin kulankani una ahayn mid la sii ogaayo iska kadis uu noqonayo. Number 8 danken umahadnaqid weeye. Umahadnaqid marka waxaanu baranaynaa sida ay ula shaqeynayaan dative-ka. Marka leedahay ishtanka dia waxay noqonaysaa waa dative, waa magaciyaal dative ah oo do waxa weeye nominative, dishna waxa weeye accusative, diana waxa weeye dative. Marka dative-ku Soomaaliga wuxuu noqonayaa maxay? Waa fal lagu sameeyay. Marka do la leeyahay waxa weeye waa fal sameeye. Dish iyo diana waxay noqonayaan maxay? Fal lagu sameeyay. Midna waxa la yiraahdaa fal lagu sameeyaa tooska ah, midna waxa la yiraahdaa fal lagu sameeyaa aan tooska ahayn ee dadban ama indirect object iyo indirect object. Waa direct object iyo indirect object Ingiriisiga. Direct object waa accusative-ka, indirect object-una waxa weeye dative-ka. Dadka Ingiriisiga ku fahmaya oo saas u noqonaya. Marka ficiladan oo dhan waxay la shaqeyn doonaan maxay? Dative-ka bay la shaqeynayaan. Ishtanka dia haddii aad tiraahdo ishtanka dish waa qalad. Marka ishtanka dia baa sax noqonaysa. Okay, number 9 drohen waxa weeye ka cabsiin inaad qofka ka cabsiiso. Velanna waa waayid. Miss inaad qofka weydid weeye. Okay, folgen waxa weeye la socosho. Number 12 gefallen waxa weeye ka helid. Macna kale leedahay inuu qofku dhulka uu ku dhaco
na way noqonaysaa marka hal kelmado waxa jirta dhowr macno leh marka gefallen hadii jeer waa ka helid bay halka maanta ugu jirta okay number 13 gehorchen waa adeecid gehorchen adeecid number 14 gehorchen waxa weeye lahaanshiyo weeye das Auto gehört mir gaariga aniga ayaa iska leh ama das Handy gehört mir aniga ayaa leh marka imika dhageysigii noqon maysa waxay noqonaysaa maxay lahaanshiyo weeye okay number 15 gelingen ku guuleysi number 16 genuggen waxa weeye ku filaan ama ku filaansho eine Tasse Kaffee genügt mir hal koob oo kafeeya ayaa igu filan eine Tasse Kaffee genügt mir ayaa igu filan aniga marka genuggen waa maxay ku filaan weeye 17 glauben waa aamin weeye ich glaube dir on ku aaminsanahay ama glaubst du mir aniga may aaminsan tahay glauben aaminid weeye gratulieren oo hambaliyeyn number 19 helfen waa caawintii ich helfe dir ama kannst du mir helfen marka mir iyo dir dhamaan wax weeye waa dative weeye number 20 nutzen waa faa'iido leh wax faa'iido la sameyn weeye nutzen number 21 passen waxa weeye la ekaansho inuu wax shaygu ku leekaado ama shaygaasi maartay inuu kugu haboon yahay uu yahay kii ku leekaa inuu yahay marka leedahay die Hose passt mir nicht ima leeka weeye su'aalku die Hose passt mir nicht macna kale leedahay marka lagu leeyahay arbacada ma iman kartaa mittwoch passt dir mittwochda okay ma kugu tahay macnaha ma iman kartaa weeye marka isticmaaladaas kala duwan bay leedahay marna waxa weeye shaygu inuu ku leeyahay marna waxa loo isticmaalayaa balantii oo kale inay adiga kugu haboon tahay inaad iman kareysid iyo inaad iman kareynin mittwoch passt dir mittwoch okay macnaha ma tahay inaad iman kareysid mittwochda marka saas oo kalena waa loo isticmaalaa okay number 22 basieren waxa weeye markay wax dhacaan was passiert maxaa dhacay was passiert waa maxaa dhacay bay noqonaysaa number 23 raten waxa weeye la talin weeye marka marka leedahay waan kula talinayaa ishqaata dia waan kula talinayaa weeye macna kale ayay leedahay oo la yiraahdo mesela marka leedahay qofka bal wax imagine bal qiyaas marka leedahay mesela waxa ku tiri fi albistu imsa jirbaa tahay deetana qofku waxa uu fahmi waayo wax uu sheegi karo waa daadii uu hore u sheegi waayo marka baad oranaysaa khaatimaal maal baad raacaysaa khaatimaal yaa nuwa khaatimaal bal qiyaas wuxuu sheegay macnaha marka labada macno way leedahay marka khaat ma hadii jeer waa talada weeye hay'ada jeer waxaan aragnaa guriga khaat house ka leeyahay jarmalka kale khaat house macnaheedu waa guriga talada weeye waa guriga magaalada looga taliyo weeye khaat house waa gurigii khaatna waa taladii marka la isku geeyo waa maxay guriga looga taliyo ama guriga looga taliyo magaalada ama guriga talada weeye marka khaat talada taasi ku noqotay weeye okay 24 schaden waxa weeye waa waxyeelayn kelmad kale jirto la yiraahdo shade oo marka shade macnaha waxa weeye in waxaasi ay saan noqdaan maan jeclayn مثلا qof baa ku yiri maanta waxaas ay ugu dhacay oo dhibaato ay ugu dhacday dad waxa oranaysa مثلا shaade macnaha shaade wax noqonaysa in waxaas kugu dhacaan ma jeclayn in waxaas kugu dhacaan marka shaade kelmadaas waa kelmad kale weey tan waa shaadan waa waxyeelayn weey number 25 ishmaken waa dhadhamid weey inaad dhadhamso wax ishmaken dhadhankii weey number 26 vertrauen waa ku kalsoonaan weey trust in qofka aad aamintid oo ku kalsoonaatid okay versahen waxa weey iska cafin
to forgive inaad qofka iska cafiso. Okay, number 28 vetun waxa weeye dhaawacid, inaad dhaawacdid qof. number 29 widersprechen waxa weeye hadal iska hor imanaya inaad ku hadashid, hadal iska hor imanaya weeye inaad ku hadashid. widersprechen hadal iska hor imanaya inaad ku hadashid. Okay, number 30 zustimmen waxa weeye ku waafaqid. waxa weeye ku waafaqid. number 1 haddaba haddii aynu soo qaadano kelmadii ugu horeysay ee ahayd aanan oo ahayd u ekaansho, mid walba waxaynu gelin doonaa tusaalayaal. number 1 der Junge ähnelt seinem Vater sehr. wiilku wuxuu aad ugu egyahay aabihii. der Junge ähnelt seinem Vater sehr. wiilku wuxuu aad ugu egyahay aabihii. ähnelt der Junge ähnelt seinem Vater sehr. marka waaniga yidhi ähnelt waxa feebkan dhammaan waxaa lala isticmaalayaa waaniga yidhi maxay dative. dativekina muxuu noqonayaa seinem Vater. markaas sidaas ayaa laga rabaa inaad u fahansan tahay. Okay, number 2 ich antworte dem Mann. waxaan u jawaabayaa ninkii. ich antworte dem Mann. marka dem Mann waa maxay? waa dative way. der Mann waa nominative. den Mann waa maxay? waa accusative. dem marka m laga dhigana waxa weeye dative way. dem Mann. Okay, number 3 das Publikum applaudiert dem Schauspieler. dadka meesha isugu yimid waa tarabuunkii weeye. publicum waxa weeye tarabuunka weeye. dadka meesha isugu yimid ayaa u sacabatumay jilaagii ama actorkii weeye. das Publikum applaudiert dem Schauspieler. das Publikum applaudiert dem Schauspieler. waxay macnaha ay u sacabatumeen waxa weeye actorkii weeye. Schauspieler. Okay, number 4 ich fahre dem Auto aus. anigu waan iska ilaalinayaa gaadhiga. ich fahre dem Auto aus. anigu waan iska ilaalinayaa gaadhiga. marka ausweichen waa iska ilaalin waa inaga nidhi. marka aus waxaa la geeyey dhammaadka senteniska ama dhammaadka weedha ayaa la geeyey. marka feebabka noocaas oo kale ah waxaa la yidhahdaa maxay? trennbar ama trennbare verben. waa feebabka horgalaha laga gooyo oo inagii fiidiyoyadan ka horeeyay waa inagii kusoo qaadanay. marka austa waa in laga fujiyo xagga hore, waa in la geeyo maxay? dhammaadka weedha waa in la geeyo. marka feebabka noocaas oo kale u shaqeeya baa waxaa loo yaqaanaa trennbare verben. Okay, ich fahre dem Auto aus. anigu waan iska ilaalinayaa gaadhiga. dem Auto waxa weeye dative. auto waxay qaadataa sida caadiga das waa das Auto. accusativekana waa das Auto. laakiin dativeka das waxay isku bedeshaa maxay? dem bay isku bedeshaa. dem Auto. ich fahre dem Auto aus. Okay, number 5 ich befehle dir das zu tun. anigu waxaan kugu amrayaa inaad sidaas samaysid. ich befehle dir das zu tun. anigu waxaan kugu amrayaa inaad sidaas samaysid. befehle waa amrid weeye. dir laakiin waa maxay? waa dative. waa magacuyaalkan oo ah dative. oo duna waa nominative. dishna waa maxay? waa accusative. dirna waa maxay? waa dative weeye. Okay, ich befehle dir das zu tun. ich befehle dir das zu tun. Okay, number 6 sie begegnet einem Mann. iyadu waxay la kulantay nin. marka waa qof aad arkaysid oo qof kale la kulmay. marka sie begegnet einem Mann
waxay la kulantay nin marka imikay la kulantay oo qof kale ayaa arkaya oo sheegaya hadalkan oo leh qof bay nin bay la kulantay marka waa kadis weey si begegnet aynu man marka ninkaasi nin la garanayo ma noqonayo nin cusub ayuun buu noqonayaa marka maadaama begegnet leeyri waa qofan marka hore la sii sheegin weey ama la sii aqoonin okay number 7 في تخاتن دم فوتبالverein by anigu waxaan ku biirayaa kooxda kubadda cagta في تخاتن دم فوتبالverein by anigu waxaan ku biirayaa kooxda kubadda cagta marka تخاتن في تخاتن دم فوتبالverein by marka by waxay la socotaa تخاتن oo waxay ahayd by تخاتن marka by waxa looga soo fujiyaa halka hore waxa weeye waa train baaqa verben oo waa verb ka horgalaha laga gooyo horgalahana waa in la dhigo dhamaadka sentence-ka sida ka muuqata by meesha ay taalo marka verb-kaas oo kale waxa la yiraahdaa train baaqa verben في تخاتن دم فوتبالverein by anigu waxaan ku beerayaa kooxda kubadda cagta marka waxa weeye football club oo kale ay u dhigantaa footballverein waxa u dhigantaa football club ingiriisiga okay number 8 shtanka dia für dein Geschenk anigu waxaan kuugu mahad celinayaa ama aan kuugu mahadnaqayaa hadiyadaada shtanka dia la oran maayo shtanka dish la oran maayo waan eegay danke waxay ka mid tahay feebabka la isticmaalayo dative-ka marka feebabkan oo dhan waa in la isticmaalo dative shtanka dia für dein Geschenk anigu waxaan kuugu mahadnaqayaa hadiyadaada number 9 droht dem Jungen isagu wuxuu ka cabsiyay wiilasha droht dem Jungen isagu wuxuu ka cabsiyay wiilasha marka imikun buu ka cabsiyay okay number 10 Du fällst mir adigu waad i waayaysaa you miss me waad i xiisi doontaa waad i waayi doontaa macnaha Du fällst mir adigu waad i waayaysaa aniga Du fällst mir waad i waayaysaa macnaha number 11 ich folge dir anigu waan kula socdaa adiga ich folge dir ama ich folge ihnen haddii si la soo qaato yuda sida oo kale waxay noqonaysaa ich folge ihnen oo mar walba waa in la isticmaalo maxay dative waa in la isticmaalo ficiladan oo dhan okay number 12 das Kleid gefällt mir labiskaas waan ka helay hadii jeer Kleid waxa la yiraahdaa toobka ayaa la yiraahdaa mid ka mid ah ayaa la yiraahdaa Kleid marka imika meesha waxaan ku soo qaadanay labis qofkii toob oranayna waa okay marka labiskaasi waan ka helay way das Kleid gefällt mir marka kelmadda gefällt ficilkan gefällt marba waa in la raaciyo maxay dative waa in la raaciyo oo mir baa ka dambaysa gefällt mir anigu waan ka helay way number 13 Die Kinder müssen dem Lehrer gehorchen carruurtu waa inay adeecaan macalinka Die Kinder müssen dem Lehrer gehorchen carruurtu waa inay adeecaan macalinka marka gehorchen waa maxay waa ficilkan oo ah ficilada la shaqeeya dative-ka marka dem Lehrer waxa weeye waa dative way der Lehrer waa nominative den Lehrerna waxa weeye accusative dem Lehrerna waa maxay waa dative way okay number 14 das Auto gehört mir gaarigaas aniga ayaa leh das Auto gehört mir gaarigaas aniga leh haddaad leedahay das Auto gehört mir mobilka aniga ayaa leh weey das Auto gehört mir okay marka gehört waa maxay waa lahaanshiyo weey
imika dhageysi waxaas meesha uguma jirto gehört mir laba macno leedahay marka okay number 15 das ist dir gut gelungen das ist dir gut gelungen si fiican ayaad ugu guuleysatay das ist dir gut gelungen das ist dir gut gelungen si fiican ayaad ugu guuleysatay das ist dir gut gelungen si fiican ayaad ugu guuleysatay marka gelingen bay ahayd marka perfectigeed muxuu noqonayaa gelungen marka dia baa meesha ku jirta oo waxa la isticmaalayaa waa dative number 16 eine Tasse Kaffee genügt mir eine Tasse Kaffee genügt mir hal koob oo kafee ah ayaa igu filan eine Tasse Tee genügt mir eine Tasse Wasser genügt mir oder noch etwas anderes marka qof walba wuxuu sheegay haduu isaga bedelaya okay eine Tasse Kaffee genügt mir marka ficilkan genugen ama genugt mir baa ka dambaysa waa dative way waa magacyal dative ah number 17 ich glaube deinem Mann ich glaube deinem Mann anigu waan aaminsanahay ninkaaga ich glaube deinem Mann anigu waan aaminsanahay ninkaaga haddii aan deinem Mann meesha ka saaro oon ku bedelo dir ich glaube dir aan ku aaminsanahay adiga ay noqonaysaa waana sax weeye dir waa maxay waa dative deinem Mann waa maxay waa dative glaubst du mir ma aaminsantahay aniga miyana waa dative marka sidaas ayaa laga rabaa inaad u fahantid number 18 ich gratuliere dir zum Geburtstag anigu waan kuugu hambaleynayaa dhalashada ich gratuliere dir zum Geburtstag ich gratuliere dir zum Geburtstag anigu waan kuugu hambaleynayaa dhalashada number 19 kannst du mir bitte helfen kannst du mir bitte helfen ma awooda adigu inaad caawisid fadlan kannst du mir bitte helfen marka helfen waa aniga idhi waa feebabka la isticmaalayo datifka oo meesha waxa ku jirta mir maxaa halkan mir ay ku jirto mish loo gelin waayo because word ama sentence kan ficilka ku jira ayaa ah helfen saadarteed meesha la gelin maayo maxay mish iyo dishton la gelin maayo kannst du mir bitte helfen kannst du mir bitte helfen kannst du mir bitte helfen ma awooda in adigu inaad aniga caawisid fadlan okay number 20 das Programm nutzt ihn nicht programkaas faa'iido uma laha isaga das Programm nutzt ihn nicht programkaas faa'iido uma laha isaga das Programm nutzt ihn nichts programkaas faa'iido uma laha isaga marka nutzt waxa weeye faa'iido weeye ama aduu faa'iido ku leeyahay ama ku lahayn marka kelmadaas waxa weeye waa verb waxaan la isticmaalayaa dative in waa maxay waa isaga laakiin magacyaalkan waa magacyal dative ah weeye waa nominative in waxa weeye accusative in ma noqonaysaa waa dative weeye marka mar walba verb ka aragtid waa inaad la isticmaashid maxay dative waa inaad la isticmaashid ama magacyal dative la isticmaali doonto ama shay kale oo la socdo article kii sheegay dative-ka okay number 22 die Hose passt mir nicht die Hose passt mir nicht die Hose passt mir nicht su'aalku ima la eka die Hose passt mir nicht marka ficilkan past waa la ekaanshihi ama kugu haboon ama shaygu markuu kugu haboonaan waayo waa shay aan ku leeyahay marka hadii jeer laakiin shaygu markuu ku leeyahay waa waxa la shaygan uu leeyahay waana numberkaygii haduu numberku ka weynaadana de ima la ka leeyahay marka past waxaan la isticmaalay dative oo ah mir das die Hose passt mir
nicht marka mar walba waa inaad ogaatid in la isticmaalayo muhiimadu waa maxay inaad ogaatid in la isticmaalayo dative number 22 ist dir das auch schon einmal passiert miyay taasi adiga weligaa kugu dhacday ist dir das auch schon einmal passiert miyay taasi adiga weligaa kugu dhacday ist dir das auch schon einmal passiert miyay taasi adiga weligaa kugu dhacday okay passiert waa maxay waa ficilkan oo la isticmaalayo maxay dative dia baa ku jirta meesha xagga dama taala ist dir halka hadayna kelmadan oolin istish waxa doonta la gelina laakiin maadaama oo kelmadan ku jirto word ay wordana ay u tahay verb ay u tahay word waxa muhiim ah in la isticmaalo dative sidaas ba markaas loo yiri number 23 ich rate dir nicht zu kommen anigu waxaan kugula talinayaa in aanad imanin ich rate dir nicht zu kommen waxaan kugula talinayaa in aanad imanin marka waa inay rate laba macno leedahay marna waxa weeye qiyaasid waniga halka falaadho tilmaamayso rate mal waa maxay bal qiyaas weeye fi albistu dadna qofkii waxba uu sheegay bita rate mal ni waa rate mal macnaha waxa weeye maxay qiyaas weeye bal xun qiyaas khat house-na waa inaga dhidhidee waa guriga talada oo khat baa xagga hore khat iyo house baa la israaciyay dadna khat house wuxuu noqonayaa maxay guriga talada ayuu noqonayaa okay number 24 das schadet der Pflanze sehr taasi waxyeelo ayay ku tahay geedka marka Pflanze waa geedka yar caaga laga dulbeeray baa la Pflanze marka geedku waa duu caaga laga dulbeero waxaa la yiraahdaa Pflanze das schadet taasi waxay waxyeeleynaysaa der Pflanze geedka sehr xoog bay waxyeeleynaysaa das schadet der Pflanze sehr taasi waxay waxyeele ku tahay geedka ay ku tahay number 25 der Kuchen schmeckt mir sehr gut keegu wuxuu igu dhadhamayaa aniga si fiican der Kuchen schmeckt mir sehr gut der Kuchen schmeckt mir sehr gut keegu wuxuu aniga igu dhadhamayaa si fiican okay number 26 ich vertraue dir anigu waan kugu kalsoonahay I trust you waan kugu kalsoonahay ich vertraue dir anigu waan kugu kalsoonahay okay number 27 kannst du mir bitte verzeihen ma awoodaa fadlan inaad si kay cafiso kannst du mir bitte verzeihen ma awoodaa fadlan inaad iska kay cafiso verzeihen waxaan la isticmaalnay mir marka mar walba la isticmaal dative number 27 der Junge tut dem Mädchen weh wiilku wuxuu dhaawacay gabadha der Junge tut dem Mädchen weh wiilku wuxuu dhaawacay gabadha der Junge tut dem Mädchen weh marka dem Mädchen waa maxay waa dative way ficilkiina waa tut weh marka weh xagga dambe la geed iyaduna trennbare verb bay noqonaysaa number 29 ich widerspreche meinem Freund anigu waxaan hadal iska hor imanayo kula hadlay saaxiibkay widerspreche waa hadal isburinaya contradictive speech baa la dhahaa hadal iska hor imanaya way iskhilaafaya ich widerspreche meinem Freund anigu waxaan hadal iska hor imanayo kula hadlay saaxiibkay marka hore qofku wax kula hadashay hadana wixii wax ka duwan baad kula hadashay widersprechen baa la dhahaa marka ich widerspreche meinem Freund waa maxay waa dative okay number 30 ich stimme dir zu anigu waan kugu raacsanahay I agree with you that waan kugu raacsanahay way ich stimme dir zu anigu waan kugu raacsanahay marka hore suuda halkay ku taalay
waxa ay ahayd maxay zustimmen suudii baa laga gooyay xagga dambe la geeyay maxaa loo geeyay waa feebabka horgalaha laga gooyo dodgkana loo yaqaan maxay trennbare verben feebabka horgalaha laga gooyo qofkii aan haro arkin fiidiyoyadeena mid kamid ah dib ha u eego kadibna ha ka soo arko feebabka horgalaha laga gooyo iyo kuwa aan laga gooynin kadibna insha Allah uu iska fahmi doonaa haddii uu qofku raadinayo casharkan ama casharada kale mid kamid ah waxa uu si toos ah uga heli doonaa page-ka shaashada kaaga muuqda ee TV-ga Somali German Union page-kan waxaad si fudud ugu qori kartaa farta madmadowga xaggan madmadowga kaaga muuqda amaba halka sawirka profile-ka hoosteeda kaaga muuqda ayaad si fudud uga heli doontaa page-ka magaciisa isla markaana like si aad ula socotid maalin walba wixii ku cusub haddii ay kugu dheeraato qoritaanka TV-ga Somali German Union waxaad si fudud aad u qori kartaa maxay @Somali Connection oo macnaheedu yahay isku xirka Soomaalida @Somali Connection oo ku taala sawirka profile-ka hoostiisa @Somali Connection oo bilaa space ah ku qor qaybta searching-ka kadibna waxa ku soo bixi doona profile-ka page-ka isla markaana la soco waxyaalaha ku cusub page-ka waxaan soo gaarnay gabagabadii guntiga gabagabadii casharkeena maanta casharkan waxaa idin socodsiinaya anigoo saxaadid SMS ah intaan ku kulmi doono casharkan xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaano Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh